الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. casharkani wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 44 ee ka mid ah suuratu lbaqara. waxa aynu ku soo dhex jirnay aayadihii ilaahay uu kaga warramayay subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil, iyada oo qisadoodan aynu hore usoo tilmaannay ilaa 104 aayadood ama 108 aayadood oo xidhiidhsanoo suuraddan ah inuu rabbi kaga warramay. marka ilaahay qoladan uu ka warramayo qisadooda xikmado badan baa ku jira. waxyaabaha ugu sii waaweyn bay ka mid tahay dadka muslimiinta ah inay ka digtoonaadaan reer banu israa'iil faldembiyeedyada ilaahay uu ku eedeeyey aayaadkan dhexdooda. nicmooyinka loo sameeyey ay ku mahadnaqi waayeen, balaayada ay dhaleen iyadana inay muuqato. markaa reer banu israa'iil waxay ka mid ahaayeen ummadaha hore adduunyadan soo maray ee fasaadka la yimid, inqiraad iyo balaayooyinna ay ku dhaceen. markaa dhibaatooyinkii ay ugu dhaceen inaynu ka digtoonaanno taasee aayaadku inooga digayaan. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ummaddan uga digayay. aayaddaa hore ilaahay waxau uhi walaa talbisu alxaqa bilbaatili wataktumu alxaqa waantum taclamuun waaqiimuu asalaata waaatu azakaah warkacuu maca alraakiciin. waxyaabaha uu ka nahayay qolyaha iyo wixii la farayay innaguna la mid baynu nahay. ata'muruuna annaasa buu ilaahay yidhi, dadka ma waxaa faraysaan bilbiri wanaagga, wa tansawna waa ka ilaawaysaan wanaaggii anfusakum nafihiina wa antum tatluuna alkitaab, idinka oo akhriyaya kitaabkii towraad oo sidaa idiin diidan. afalaa tacqiluun, miyaydaan waxba garanayn oo wax aa fahmaysaan aanay jirin? qof caaqila arrintaasi ceeb bay ku tahay. istifaamtani waa inkaari, ilaahay waa ku diidan yahay. sababtuna waxay ahayd culimmadii reer banu israa'iil caado waxa u ahaa qaar badan oo ka mid ah marka nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xaqiiqaday iska sheegi jireenoo waxay odhan jireen moxamed run buu sheegayaa, kitaabka iyaguna wuu ka sii warramay, haddaba idinku raaca. bal garo oo iyagii ma rumaynayaan mana raacayaan. markaasaa taa ilaahay uu ku eedeeyo waxau ihi war kuwiinaa culimmada ah ee kitaabkii towraad garanaya ee akhriyaya, dadkii masamaha faraysaanoo waxaad leedihiin maxamed run buu sheegaye raaca. idinkii culimmada ahaana hormuud iyo tusaale uma noqonaysaanoo dadka ma hogaaminaysaanoo rumayn maysaan nebiga. rabbi waxa uu tilmaamay afalaa tacqiluun buu ilahay leeyay, miyaydaan caqli lahayn? caqligiini xaguu ka dhacay qof inuun wax garanaya arrintaasi inay ceebtay uu dareemaya. halkaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qofku arrinta u wanaagsan inay tahay inuu isagu dadka wanaagga faro, horseedna ugu noqdo. haddii taasi ay dhici weydo, dadkii wixii uu u sheegayay ma qaadanayaan. waxa ay leeyihiin dee horta adigu hormuud ka noqo oo shaygan adigu horta horseed noogu noqo. ceebna qofkii way ku noqonaysa. nebiguna waxa uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam uu xadiid ku sheegay mathalu alcaalim alladii yucallimu annaasa alkhayra walaa yacmalu bihi kamathali siraaji yudii'u linnaasi wayaxriqu nafsah. qofka caalimka ah ee dadka wanaagga baraya ee isagiina aan ku camal falayn
waxa uu la mid yahay bahalkaa shamaca la yidhaahdo kale. shamicii wuu gubanayaa oo isagii waxba kama soo hadhayaan, dadkiina wuu u iftiiminayaa. markaa dadkii nafci buu u leeyahay, laakiin isagiibaa holcay oo gubtay. arrintaa waxaynu ka arkaynaa nuqsaanta weyne qofka wanaagga sheegaya marka aanu ku dhaqmayn ku sugan. xadiid labaad waxa uu ahaa uu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam, maalinka qiyaamaha nin baa la keenayaa, naartaa la gelinayaa, mindhicirkaa ka soo dhacaya, wuu ku wareegayaa. markaa sidaasuu ugu wareegayaa, dhanna wuu u dhaqaaqi laayahay. ahlu naarkii kalaa ku soo ururaya, waxa ay leeyihiin wanaaggana waad nafari jirtay, xumahana hebelow waad noo diidi jirtee balaayadani xaggay kaaga dhacday. waxa uu leeyahy way jirtay, laakiin xumaha waan idinka nahyi jiray, anna waan la iman jiray, wanaaggana waan idin fari jiray, lamanaan iman jirin. waa nuqsaan weyn. cabdillaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu, mufasirkaa weyn, saxaabigaa jaliilka ah, ayuu nin maalin u yimid. waxa uu idhi innii uriidu an aamura bilmacruufi wa anhaa cani ilmunkar. wadiifo weyn oo tii rusushaabaan isu diyaarinaya inaan qabto, wanaaggaan dadka farayaa, xumahana waan u diidayaa. cabdilaahi waxa uu ku yidhi, oo halkaa darajadaa miyaad gaadhay? waan rajaynayaa buuhi ninkii inaan gaadhay. haddaba 3 aayadood oo kitaabka ilaahay ka mid ahuun inaanad ku fadeexadoobin iska ilaali buuhi haddaad hawshaa qabanayso, dad wanaag u sheegaysa, xumana u diidayso. aayadda u horraysaa waxa ay tahay ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum. waa aayaddan aynu hayno. tan ma sugtay oo ma ku camal fashay buuhi oo maya buuhi. aayadda labaadna waxa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun. aayaddaa ku jirta suuratu saf. dadka mu'miniintaabaa ilaahay uu leeyahay waxaydaan samaynayn maxaa odhanaysaan, taasi waa dembi weyn ilaahay agtiisa. aayaddaa miyaad ku camal fasho ma sugtay buuhi maya buuhi. aayadda saddexaadna waxa weeye tii nebiyullaahi shucayb ilaahay uu kaga warramayey. nebi shucayb baa qoladiisii markuu wanaagga faray xumahana u diiday ku yidhi, wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma statactu. war ma doonaya inaan xumahaa idin weydaarto, wanaagun baan doonayaa. markaa 3 aayadood bal horta isku bilowoo sug buu ku yidhi markaa ninkii. sidaasaana laga doonayaa dadka culimmada ah ee gaadhsiinaya dadka balaaqa, iyo dadka cuqaasha ah ee waxa wanaagga ah dadka faraya, iyo dadka madaxda ah ee mas-uuliyiinta, intaba saasaa laga doonaya. laakiin qofkii intuu wanaaggii dadkii u sheego, ama madax ha ahaado, ama culimo ha ahaado, ama caaqil kale ha ahaadee, hadduu haddana isagii madoobaysanayo oo weydaaranayo, nuqsaan iyo foolxumo weyn weeye. ilaahay waxau idhi wastaciinuu bisabri waasalaah, sabirka iyo salaada kaashada oo gargaarsada, wa innahaa salaadii la kabiiratun mid weyn weeye, ilaa cala alkhaashiciina, dadka ilaahay u khushuucsan ee qalbigooda uu liilyan yahay, kuwaasay u fududdahay. alladiina kuwaasoo yadunnuuna yaqiinsan annahum iyagu mulaaquu rabbihim, inay ilaahooda la kulmi doonaan bay yaqiinsan yihiin, wa annahum ilayhi raajicuun, inay ilaahay u noqonayaanna way yaqiinsan yihiin, isaguun maris hortaagi doonaan. halkan waxa ilaahay uu ku muujinayaa aayaddan marka adduunyadan aynu joogno waa daaru lmashaqati waalmataacib. balaayadeedu way badan yihiin, meel lagu nasanayo balaayana ay ka maqan tahay ma aha. waxaa kaloo iyadana jira imtixaanaad iyo mashaqooyin qofka kaga imanaya xagga takaaliifta iyo waxyaabaha la saaray. arrimahoo dhammi si ay ugu dhib yaraadaan wixii dhib ku yeelan lahaa ayaa tawsiye iyo dardaaran baa ilaahay uu siinayaa reer banu israa'iil iyo ummaddan islaamkaaba iyo bashariyadoo dhan. markaasaa rabbi waxa uu leeyahay waxaa kaashataa sabirka iyo salaada. markaa sabirkii waa sahay gaar ah oo uu iska leeyahay qofka mu'minka ahi, ka gaalka ahi lama laha. qofkaa mu'minka ahi sabirkaa waxa uu u yahay sallaan uu kaga tallaabo haadaanta iyo dhibaatooyinka. waa biriish u fududeeya wax walba. sabirkiina markaa meelo walba wuu gelaya. qofkii inuu waajibka gudashadiisii ku sabro, xaaraamta ka joogiddeedii inuu ka sabro, wixii musiibee ku dhaca inuu ku sabro. haddii uu cid siinayo wax oo infaaq iyo maal bixintii bakhaylnimadii inuu ka sabro iska xejiyo. xataa culimmada qaarkood mufasiriintu waxa ay ku fasiraan hadduu madaxnimo hayo iyo mansab oo dabeedna ay tahay inuu ka tanaasulo uu ka dego isagoo awood u siila inuu haysan karo, inuu iyadana ka sabro. wixii aanu xaq u lahayn qofku inuu ka sabro wey.
waana mid qaaliya sabirkaasi aad buu qaali u yahay salaadii iyaduna way ka saacidaysaa qofka wixii dhibaato ahaa ee ku yimid sidaa awgeed baa waxa uu lahaa sayid cali radiallahu canhu habeenkii aanu dagaalkii beder ku jirnay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad buu badinayuu tukanayay intayada kalena waanu hurudnay wa innahaa damiirkaasi waxa u noqonayaa salaada waxay ku culus tahay lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin sidee baanay ugu cuslayn bal dadkeennan eeg boqolkiiba wax yar baa tukanaya iyagiioo dadkii haysta dharkii iyo biyihii iyo guryahoodii deegaan ah tashiilaadkii iyo wixii arrintan u suuro gelin lahaa cibaadadan oo dhan wada haysta ayay haddana ku culus tahay ka'annamaa yashacadu fi samaa iyadoo la yidhi qofkan adoon diyaarad iyo dayax gacmeed midna fuulin kor u duul oo kaluunbay ka dhigan tahay way ku culus tahay qofkii oo waxa u qurxinaya ibliis iyo naftiisii ayaa taariku salaadnimada u qurxinaya laakiin dadka mu'miniinta ah ee cibaadaysanaya ilaahay khaashiciin buu ku sifeeyey tilmaantooduna waxay yihiin aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa annahum ilayhi raajicuun dannigaasi aayaddu ay tilmaantay waa bimacna alyaqiin weeye waxay yaqiinsan yihiin inay ilaahay la kulmayaan oo ay u laabanayaan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kolka ay arrini ku timaado salaaduu u degdegi jiray cabdillaahi ibnu cabbaas mar walaalkii oo geeriyooday loo soo sheego socod uu ku jiray intuu gaadiidkii tu'iyey ayuu dabeetana salaad tukaday istirjaacii buu la yimid waxaanu akhriyay aayaddan wastaciinuu bisabri waasalaah waana sida laga doonaya dadka mu'miniinta ah wa innahaa waxaa kaloo lagu fasiri karaa tawsiyada dardaarankaasi ilaahay uu idin faray sabirkiiyo salaada inaad kaashataan arrin weyn weeye dadka khaashiciintaa wuu se u fudud yahay wamaa yulaqaahaa ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaahaa ilaa duu xadin cadiim yaa banii israa'iila reer banu israa'iilow buu ilaahay yidhi udkuruu nicmatii nicmadayda xusa allatii ancamtu calaykum nicmadaasoo aan idinka idiin nicmeeyey wa annii fadaltukum cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaana inaa idinka dheeraad siiyey taana xusa reer banu israa'iil baa ilaahay uu yeedhay waxa uu rabbi leeyahay nicmaan idin siiyey nicmadaasi dee way badnayd cadowgii oo laga badbaadiyey iyada oo xabag barsheed iyo malab dusha looga soo dejiyey iyada oo daruuraha loo hadhaynayey iyadoo cadowgoodii haystay qaryaddii ama baytalmaqdisba ku jiray ee waaweynaa laga jebiyey nicmadaa xusa buu ilaahay leeyahay dheeraad baan caalamkii wakhtigaa idinka siiyey ee xusa markaa rabbi waxa uu leeyahay ku mahadnaqo oo shukrigii la yimaada nicmaduna haddii lagu mahadnaqi waayo niqmo iyo musiiba isu rogtaa caalamkaasi waa caalamkii hore laakiin ummaddan nebigu waxa uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inay iyadu ka fadli badan tahay ummadii hore antum tuufuuna 70 umma antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah 70 ummadood baa u dambayseen oo ilaahay agtiisa idinku ugu khayr badan tihiin uguna karaabo badan tihiin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billaah marka shuruudaha ummaddii islaamka laga helo waxay noqonayaan dadka kuwa ugu khayr badan wattaquu yowman maalin ka cabsada buu ilaahay yidhi laa tajzii nafsun can nafsin nafina naf aanay ka gudi karaynin shay-an waxba waxay ka bixin karaysaane aanu jirin walaa yuqbalu minhaa shafaaca naftaa la qabsadayna erge lagama yeelayo walaa yu'khadu minhaa cadlun madax furashana lagama qaadi doono hadday wax isku furato walaa hum yunsaruun loona gargaari maayo dadkaa la qabsaday waxaa ilaahay uu bani aadamka uga digayaa niqmada iyo dhibaatada weyn ee soo socota dharaarta qiyaamaha waxaa ilaahay uu xusuusinayaa dadka in badanna ugu soo celcelinayaa qofku marka uu isaga xusuusan yahay dharaarta dunuubta iyo gafafka iyo jaraa'imka wuu fududaysanayaa wuu ka dheeraanayaa baan leeyahay mana fududaysanaya u sahlanaan maayaan laakiin marka kale ee aanu xusuusnayn wax wal oo mashaqo aba uu dhex geli karaa maalinkaas 4 arrimood midna ma jira buu lahay haddii qof la qabsado naf kale oo furanaysa waalidkiiba ha ahaado weladkiisiiba ha ahaado ma jiro erge lagama aqbalayo qofkii gaalka ahaa madax furasho lagama aqbalayo cid intay ku mara tuurta xigto u noqoto u hiilisana iyadana lama arkayo maalinkaasaa idinka dambeeya camal saalixa la yimaadaba ilaahay uu leeyahy oo addoomaha ayaa rabbi uu la talinayaa dardaaran wanaagsanna uu siinaya ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu naga yeelo kuwii dardaarankaa si wanaagsan u aqbala ee u hoggaansama
darisku halkaa inoogu jooga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.